خطبة منبرka isagoo khudbadaynaya nin caraabiya isdhextaagay dadka dhexdii oo yidhi rajulun ghariib baan ahay jaa'a yas'alu can diinihi laa yadri maa diinuhu nin ghariiba ayaan aho diinta islaamka ku cusub oo u yimidee diintiisa islaamka inuu wax kaa weyddiiyo khudbaddii jumcada intuu nebigu joojiyey ayuu ka dhaadhaco ninkii halkii buu ugu tegey kursigii baa la daba qaaday nebiga calayhi salaatu wassalaam mas'alad allii mas'aladuu raba inuu nebiga weyddiiye markuu weyddiiyey uu u dhammaystiray ayuu nebigu soo noqdo khudbaddii buu nebigu dhammaystiray waa mucallim haddaad mucallim tahayna mahalkaagu waa nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam mahalulaclaa ciddaad ku dayanayso waa nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam haddaad qaa'id ummadeed aad tahayna u fiirsa dulqaadka nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam nin reer baadiyo oo acraabiya ayaa nebigeennoo saxaabadiisu hareeraha ka socdaan gadaal intuu kaga yimidday ayuu cimaamaddii nebiga go'i nebiga hunguriga kaga qabtay markaasuu weliba hadal adag ku yidhi xoolaha ilaahay agtaada uu dhigay adiguna ma lihid awowgaa cabdulmutalibna ma leh nasiibuu ka yidhi intuu nebigu qoslay buu ku yidhi siiya buudha 100 halaadoo geela isagiina la siiyey xaakim haddaad cid ku ummad taladeeda aad haysid ama magaalo xakum ama waddan xakum ama tuulo xakum ama tala reereed hay cidda aad ku dayanaysa waa nebi maxamed waa mahalulacla dhinac walba waxa uu nebigu bashariyadda u yahay mihaalkii u sarreeyey lagu dayanaayey inaad ku daba liibaanta mooyaane ku daba khasaari maysid abadan abadan limaada laanna ilaahay baa yidhi wain tutiicuuhu tahtaduu haddaad nebi maxamed aad raacdaan ood ku dayataan waad hanuunteen baa ilaahay yidhi tabaaraka wa tacaala saxaabadu ninka inay gacan ula tegaan bay ku hamiyeen walaakiin nebigu uu dhoolla caddeeyey intuu qoslay saxaabadii cadhadii buu ka baabbi'inayaa markaa buu nebigu saa intuu ege buu qoslo wuxuu ku yidhi war waxa uu doona siiya buu nebigu yidhi kaxeeyo baytalmaalka geeyo oo siiya buu yidhi haniimadii gaalada laga soo qaaday buu nebigu sidaa u qaybinayey kan intaa siiya kan intaa siiya kan intaa siiya nin acraabiyo reer baadiyaa ayaa saxaabada isdhex taagoo qayliyoo yidhi wallaahi qaybtan la qaybiyey lagumana cadaalad falin ilaahay dartiina looma bixin buu yidhi hadalkaa ciddan lagu leeyahay waayo waa nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wassalaam bal u fiirso dulqaadka nebigeenna eeg siduu nebigu ummadda iskugu waday eeg qismaddan la qaybiyey laguma cadaalad samaynin ilaahay dartiina loogama jeedo hadalkaa ninka lagu leeyahay maaha shakhsi kale waa nebi maxamed markaa cabdulaahi bni mascuud radia allaahu canhu ayaa maqlaayey markaasuu nebiga u tegey calayhi salaatu wassalaam markaa buu nebiga u sheegay markaabaa wejigii nebiga ayaa markiiba doorsomoo isbeddelay markaasaa nebigu yidhi hadday ilaahay nebi maxamed cadaaladdu xaggooda ka iman ayaa kaloo cadaalad samayn buu nebigu yidhi soo qabtoo ninkaa xidha nebigu ma odhan isbarbar dhig madaxda zamankan ummadda taladeeda haysa waddankay dooni ha joogaan iyo qaa'idulacdam qaa'idkii weynaaya ummadda hoggaankayga ilaahay noogu dhiibay halkay kala joogaan bal isku eg saasuu eegay nebigu sal alla alay slam markaasuu yidhi ilaahayo nebi maxamed hadday iyaka cadaaladdu xaggooda ka iman ayaa kaloo cadaalad samayn kara buu rasuulku yidhi markaa buu nebigu yidhi walaalkay muuse calayhi salaam intaa in ka badanba waa la dhiba uu sabray buu rasuulku yidhi laanna qur'aankaa nebiga qabanaayey qur'aanku waa usuulu dacwa usuusha dacwadda qur'aankaa laga bartaa qofka muuminka waxaa xakamaynaya waa qur'aanka weeyaan haddaad cadhooto qur'aanka ku noqo haddii lagugu gafo qur'aanka ku noqo haddaad talo ummadeed kaa gurracanto qur'aanka ku noqo waa inaad noqotaa marjacaaga waa inuu ahaadaa qur'aanka limaada li'anna qur'aanku waa kalaamka ilaahay tabaaraka wa tacaala cadaalad dhammaystiran baa qur'aanka ku dhammaystiran waa maxkamad cadaalad oo dhammaystiran markaa buu nebigu walaalkay muuse calayhi salaam waa nebi muuse intaa in ka badan ba isagana waa la dhibo uu iska sabray dee anigana waa sabri bay ka dhigan tahay markaa wax kale iima yaallo sabirunbaa ii yaallo weeyaan sabir badana dulqaad badana nebigeennu calayhi salaatu wasalaam dulqaad mas'uul isagoo ummad taladeeda haya ka daciifka ka qawiga ka ilaahay adeecaya
كعبادتي سناقس كتحي كحق إلهي إلالينيا كحق بني آدم كولي أن دميسترين كأخلاق ذو وناكسنة كأخلاق دي سؤال ليدتو كدينتا كفي عن كدينتا ولي كدقن كيغا كفي عنين انت بالنبيين عليه الصلاة والسلام ومدي سوسكو وضي رئيس المنافقين عبد الله بن أبي بن الصلول إنن كيسيبا نبيين ويمد عليه الصلاة والسلام مركي لغا سو نقضي غزوة الأحزاب مركاسو يا رسول الله آبهي منافق نمدي سي عداتي وحان كبقى يا آبهي نن مسلمة انتو دلو نكا مسلم كي صحابي كي آبهي دلي إني أنيغا نقعني إيغا سيبتو سدا نار كو غلان كبقى يا آبهي كوركيس أنيغا سو غينو كو كينيه يقول فصحبو كيدي أبيهين ورئيس المنافقين ويان مرقابو نبي يقول ما يكوكو فصح ما يبو كيدي وايو لا أوران مايو صحابي با منافق دي لا أوران مايو لغو شاكين مايه وحال لغو شاكين صحابة دي محمد با إسلين سوكور كاسكا جريسا هذه وآبها صحبة دي سوناجب كيدو أصم فل أنا كان شركي سيلاهي بأنك كافين دون أبو رسولك كويري مدير كدب نكا أودي من دونا رئيس المنافقين دانا مركو دينتو صحابي أودالي با نبي قوي من دونا ويل كيسي عبد الله با من دونا ونبي كو أوران دونا يقوتكو مرقا عمر بن الخطاب با كو أوران دونا يا رسول الله منافقها كنت كان الداع إلا صلاة الجنازة قفك اللي قلت كان يو والدعين قفك اللي دعين ويان مرقا أبو النبي كيري عمر وان كنت كريه اسكد أبو كيري مرقا أبو يا رسول الله منك منافق نمدي أي عده قرآن كنا وفضي حذي ما كنت كان اسمه مرقا أبو يا عمر أنا خيار با إلهي إسيو وكيري استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم خيار با إلهي أنيق يسيو واكا إلهي يقوله هذا دونت أودن بداف ضلب وأدعي ويان هذا دونت نهب أدعين هذا تكوى تضبات تنجر إلهي أدن بداف ويدي سنة لو دن بداف ما يبال ليقو يريه خيار با ليسيو خيار كهوريه هنوتو كده هنكتو كده عمر وإسكا كيدابو نبي كويري نبي قوى أقي هاي نكا صلاة النبي محمد وكتو كنيو إني سنوحبا أترين وأقي هاي لكن نبي قوى أيو إلالينا يا ويلكيس الصحابي جليلك دراري هبي النبي أكتاغن دين الإسلام الدفاع ديكيس أولاد ديارينو كبحيو كابو نبي قوى قلبي كيس دورا يا برقا نبي قوى مدي سوسكو دا وكتو كده نبي قوى عليه الصلاة والسلام هذا نمر قاسو يا رسول الله قبري كيسنا النور راعو بالكالا يحدن هل كان نلدو الجوكسو لعل الله يا بدو الجوغا إلهي ونقولنا حريصة أبهي مركاسو راعي رسولكم عمر بن الخطاب النبي قعنت هردقو يدي يا رسول الله نمن كان منافقين تقبروك هتجينا كجوك هذا بعد مركب النبي قعنت عمر اسكا قاده وحول عمرو خيار بانيق إلهي السيه خيارك هيك قادنه اسكا كيدابو النبي كيد عمرو وتجي قبرجينا النبي قواز كرتاجي وأودعي وكسر نقضي صون نقد كصون نقد النبي القرآن ككسر دجايا قل لي هي ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله وبرسوله وماتوا وهم فاسقون بالغيري ما أنت وحي كدم بسبب النبي قال الغيري كوا منافقين تا صلاتنا كمد كان كرتد وأمد عين كرتد قبرت ودنا هسكر تاجي بالنبي قال الغيري آيات كقرآن كصوت دجي يا واحد اسوافقي تلبحنت عمر بن الخطاب وسوجدي مالك انت كدم بيسبال عمر بن الخطاب مركز تلده ونبي الصحابه شورده وتلقلينايو تلده عمر بن الخطاب وديبتا نبي سيجارو اسكغا ايغي جري بالي لماذا امام سيوطي رحمه الله كتاب تاريخ الخلفاء وحو كشيغي 15 تلبحن او عمر امده وسوجيديي تلا امداد oo nabi maxamed uu dhiibtay iyo quraanka iswaafaqay baa lagu yiri xijaabka kamida maqaam ibraahim baa kamida aayaadka munaafiqiinta ka waramaya ayaa kamida 15 talo oo umar uu nabiga u soo jeediyay iyo quraanka iswaafaqay baa la yiri intay ka dambeysay haduu umar tala dhiibto nabigu talada umar si gaar ah ugu hayn jiray baa la yiri marka nabigeenu calayhi salaatu wasalaam sidaasuu nabigu ummadiisa iskugu waday xagga cishradana
cishradu waa maxay sidee nebigu reerihiisa ula dhaqmaaye ilaa shakhsi mutakaamil u ahaa nebi maxameda ilaahay baa yidhi wa innaka la calaa khuluqin cadiim jaanib keliya kuma sifoobin xagga cibaadada waa masal xagga akhlaaqda waa masal xagga maamulka waa masal xagga shujaacadda waa masal xagga naxariista waa masal xagga tarbiyadda awlaadda waa masal xagga maaragtaane deeqsinnimada waa masal xagga zuhdiga waa masal xagga mucaasharada reeraha siduu loola dhaqmo waa masal masal waa maxay waa tusaale caaisha radiallaahu canha waa la weyddiiyey aqalladiisa nebigu markuu joogo muxuu qaban jiray noo sheeg baa lagu yidhi markaasay tidhi umma almu'miniin caaisha radiallaahu canha waxay tidhi aqalka markuu nebigu joogo wuxuu qaban jiray maynii sheegaa kabta isaga ka gooday buu nebigu iska toolan jiray marada ka dildillaacantayna nebigu uu karkaran jiray neefkiisana uu maalan jiray aqalka dhexdeeda adeeg waxaan u baahanayna nebigu waa noo qaban jiray tidhi isagaa noo adeegi jiray adeeg laakiin salaadda hadday gaadho nebigu salaadduu u baxaya calayhi salaatu wassalaam xuquuqda eheladiisa uu ilaalin jiray bal isagaa inoo sheegoo yidhi nafaqada dirhamka aad ilaahay diinkiisa aad ku nafaqaynayso iyo dirhamka maaragtaanay addoon aad ku xoraynayso iyo dirhamka maaragtaanay miskiin aad siinaysid iyo dirhamka ehelkaaga aad ku nafaqaynaysid waxaa ilaahay agtiisa ajar badan buu nebigu yidhi ka aad reerkaaga ku nafaqaynaysa ajar badan buu rasuulku yidhi ka reerkaaga aad siinaysid qadra alxaaja markaasuu akhlaaq buu reerihiisa ku maamulaya akhlaaq wanaagsan uu iman jiray aqalka caayisha wax la cuna ma yaallaan caayishaay maya bay odhan jirtay markaa buu odhan jiray waa iska soomanaha iska daa xabsi uu tegi jiray wax la cuna ma yaallaan saaka maya waxa ma yaallaan rasuul allow waa soomanaha iska daa buu odhan jiray cunto haddii la siiyey cajabisana uu cuni jiray hadday cajab gelin weydana nebigu ma ceebayn inuu ka tegi jiray wixii cajabiye wixii loo sameeyo haddii shaygaa uu cajabiyo ma odhanayn haddii shayga la sameeyana ma odhanayn maxaa sidan u samayseen shayga aan loo samaynna ma odhanayn maxaasaa u samayn weydeen ma dagaalamayn ma cadhoonayn hal mar bay dumarkiisu nebiga ay intay isku yimaadeen yidhaahdeen muu nebigu biilna siiyo masaariif waatan dawladda islaamku dhaqaalo yeelatee wuu ka hijrooday nebigu dumarkiisii jibriil baa u yimid oo waxaa lagu yidhi reerahaagii adduunyaa soo gasho adduunyay ka fikireene ka dheerow baa lagu yidhi 24 cishuu nebigu maskiidka iska galay baa la yidhi ilaa magaaladii madiine war waxaa galay la leeyahay nebigu xaasaskiisii uu furay cumar baa socday inantiisii xabsuu u tegey aabba nebigu muu ku fura maya nama furin maxaad samayseen wallaahi waxaan samaynoo dembi weyn annagu ma garanayne waan isku imannoo waxaan soo hadal qaadnoo nidhi waatan dawladdii islaamku dhaqaalo yeelatee muu nebigu masaariifii noo qor haddeetoole bal masaariifii rabiila abuubakar baa socday inantiisii caayishuu u tegey maa lagu furay may layma furin aabbo maxaa dhacay nebigu wuu niga hijroodaan maqallee waxay tidhi nebi allow aabbow dembi kale ma samayne waxaan isnidhi keliya haddaan haweenkii nebiga nahay dawladdii islaamku waata dhaqaalo yeelatee xoogaha masaariifa nebigu meel haynii saaro ma intaasuunba haa waa intaa deedna markaasaa nebiga aayadahan ku yaalla suurat alaxzaab aayaatu takhyiir ee kala doorashada ee la leeyahay nebi maxamed ilaahay iyo rasuulkiisa iyo daarta aakhiro dhinaca iyo adduunyadiiyo ziinadeeda oo dhinaca kala doorta aayadaha ka warramaya kala doorashada kala doorbidashada ayaa marka nebigeenna ku soo degay calayhi salaatu wasalaam waxau nebigu ka bilaabay xaasaskiisa tii ugu jeclaa buu nebigu ka bilaabay waa tuma umma almu'miniin caaisha radia allaahu canha taasuu nebigu reerihiisa ugu jeclaa camar binu caas baa weyddiiyey nebiga su'aashaas camar binu caas baa saxaabada ku odhan jiray saxaabada nebi maxamed anuu iigu jecel yahay ku salliya rasuulka sala allahu alayh wasalam markaasaa lagu yidhi war ka daa may anuu iigu jecel yahay war ka daa may waan weyddiin salaaddii markii laga baxay buu camar istaagay wuxuuhi yaa rasuula allah dadka ayaad ugu jeceshahay ii sheeg
markaasuu nebigu yidhi caaishaan ugu jecelahay buu yidhi innaka ma dhici kartaa ninku inuu ragga horteeda ku yidhahdo waana dumarkayga islaantaasaan ugu jecelahay waad ka xishoon laakiin ceeb maaha nebigu uu sheegay mujtamacuu ka hor sheego wuxuu yidhi dadka waxaan ugu jecelahay caaisha markaasuu yidhi maya dumarkaaga maaha ragga markaasuu yidhi aabbaheed waa kuma abubakar markaasuu haddana markaasuu yidhi cumar marka camar binu caas saxaabadiiba eego waan iska aamusay buu yidhi maxaad u aamustaan lagu yidhi wuxuu yidhi waxaan ka baqay inuu nebigu iga dhigo ka ugu dambeeyo buu yidhi marka aamuskaa la ii qaatay buu yidhi uu iska aamusay markaa camar lidaalika nebigu caayishuu xaasaskiisa ugu jeclaa mas'aladdaana kala doorashada nebigu waxau ka bilaabay cidduu xaasaskiisa ugu jeclaa wuxuu yidhi caayisha soo fadhiiso aayadahan qur-aankaa dusheeda ku soo degay waa kala doorbidasho ilaahay iyo rasuulkiisa iyo jannada oo dhinaca kalena adduunyadiiyo zinadeeda oo dhinaca labadaa kala dooro weliba inan yar baa tee go'aan qaadashada ha ku degdegine tale haddaan ka bixiyana waxaa ila qumman inaad aabbaha abiibakar iyo hooyada aad la soo tashato markaabay caa'isha tidhi ma ilaahay iyo rasuulkiisa iyo jannada ayaan aabbaha iyo hooyaday ka talagelin may ka talagelin maaya bay ku tidhee ilaahay iyo rasuulkiisa iyo aakhirada ayaan doortay maanta intay ka dambaysana adduunya dambe kugu hadal qaadi maaya bay ku tidhi markaa buu nebigu farxay calayhi salaatu wasalaam markaasay ku tidhi nebi allow sida aniga aad ii weyddiisay soo xaasaskaagana u weyddiin maysid markaa buu yidhi haa iyakana waa ku socda adaa kaa bilaabay waxay tidhi haddaba anigu mawqifkayga aan doortay adiga ha iiga sheegina iyakana weydii bay ku tidhi taladooda halkaa markaa maseer yar baa ku jira soo maa markaa buu nebigu intuu qoslay buu ku yidhi wallaahi hadday ayaku i weyddiiyaanay igu yidhaahdaan caa'isha ayay dooratay anna ka qarin maaya buu rasuulku yidhi yacni sidan adiga wanaag iyo janno kuula rabaan iyakana ula rabaa janno weeyaan waana imtixaan arrintu waa ikhtibaar weeyaan oo la leeyahay ilaahay iyo rasuulkiisii iyo jannadoo dhinaca iyo adduunyadiiyo zinadeeda oo dhinaca kala doorta waa khiyaar cajiiba waa imtixaan weeyaan